بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنو مقالة مقدشو قارهان اسبتالك رجب طيب أردوغان كسوة بوقني أبوان محمود عبد الله عيسى سنقو لغو قالي اسبتالك إمي كانت شيفا إنكستو كعبنا يو حنونو إلهي وحن كبري إنو إلهي وحن كبري إنو عافمات لما يستران سيو أبي ورثات مرحوم السرادر أنت يا أخي وروح أحد قلعان حنوني معاي هاي الكاس أنا ورقة الصبح الخا قلقوا إلى الصبح فيكي واحد يسقبت هاتي اللاعي أنتيه واقر لو شهادتي وياي والقول تساوي وري صباحي waxay tiraa dumin wadkii waa ogaa mid dhawaab xanuunka ilaahay si ayaan leh ilaahay waa kulli naftaye laakiin mudna nafsaydan la tartaarmayaa naftayda allaha ku baray ilaahaaga waa taqaan inuu ku abuurtay isuu keli baaqiya adduunkiisiina tahay inaad dhiban waad ogtahay eedaanka haddaadan keen astaqfirullahi ya allah tooba adan rag inaad ashkatiisi tahay nafyahay ogow nafyahay marka waa la tartaan xijalla kale iga baxayso intaa yara sakaraadka nuuya wax dhafooqay danka badi deetii alla inaan u dhidnuuye gaajiya dhakhtariyo dayac dayac ti alla mooyaane marka waxa weeye waa lagu dayayaray maasha allah marka waxa weeye dadweyne badan baad lahayd oo yani sugaantaada dhegeysan jiray daawan jiray dadka fariintaad maxaa u diraysaa waa maxay dadweynaha soomaaliyeed waxaan u dirayaa ilaahay nabadgeliyo balaayada ilaahay ka qaad dhibaatada nagu salabaan ku salay Allah ka qaad maxaan ayaa lagu marwada adayga magacay waxa la khadija boqran marka ayaan dhaweed baa waxa ka soo baxay nabarkaas ka soo baxay kilinkilada isbitaalkan kana waa la qalay nabarka infection buu sameeyay infectionkii waxa uu taabtay kaliyaha marka alxamdulillah ilaahay buu marti u yahay saas xaaladiisu tahay marka sonkor buu leeyahay sonkortaas marna kacaysa marna degaysa marna qandhada qabanaysa marna way degaysa marka waxa weeye naftiisa iyo teena mid horreyn doonta ilaahay baa og marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ka baryaynaa meel kasta ay joogaan inay ducada iyo faatixada ilaahay noogu baryaan ilaahay nagu soo kaabaan marka wala xaaladdiisu sidaa weeyaan insha Allah kamarna caadi wiska iyo daba qofka normalka ah wax ka halaysanaan jirin marka qandhadu qabatana waxaad moodaa inuu xoogaa maaragtay marka dad badan baa jira ummadda Soomaaliyeed ugu badan tahay dad badan oo ehelaa jira dad badan oo macaarifa jira dad badan oo fanaaniina jira ubad badan oo dhalay baa jira caruur awoow iyo tiro badan baa jirta marka cid walba waa la socodsiinayna ilaahina waxaan uga baryaynaa in booqashada dambe insha Allah sida ka fiican oo caafimaad qabeen nagu soo noqotaa waxaad ka wartaa xukuumadda sheeganay dhinacyo kala duwan oo garab istaagay waxaan jeclaan lahayn dhinacyada ka xustay sidee idin garab istaagay waxaan loo garab istaagay oo ugu weyn marka ugu horeysa madaxweynaha ummadda xasan sheekh maxamuud iyo marwadiisa marwa qamar ayaan aad ugu abaal celinaynaa oon abaalan duugoobin oon dhamaanin aan u haynaa iyaga halkaa ku haysa iyaga halkaa ku haya iyaga ka soo wardoona iyaga kharashka isbitaalka iyo daryeelkiisaba qaba marka bini aadan waxa laga helo waxa weeyaan mahad celin qofan bini aadanka mahad celina ilaahay uma mahad celiyo marka waxa kaliya oran karna waxa weeyaan aad baad mahadsantihiin ilaahay iyagana jasaa khayr ilaahay ka siiyo jasaa iyo abaal badan ruux Soomaaliyeed iyo abwaano Soomaaliyeed iyo fanaaniin Soomaaliyeed iyo culimo Soomaaliyeed iyo umad Soomaaliyeed oo aan noo imanayna ma jirto ما شاء الله iyagana waxaan leenahay aad baad mahadsantiin ilaahay jasaa idinka siiyo aad baad mahadsantahay jazaak Allah khayr shaqeeyaan
wiilasha yaryar iyo gabdhaha yaryar kulli waa ummadii fanaaniintii gacanta ku haya weeyaan looma kala harin waxa weeye dhinacyada kala duwan ee ay marwadu u mahad celinayso annaguna muxuu ahay waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayr runtii abwaanka waa la garab istaagay maanta ayaanu soo booqanay abwaanka waa abwaan maxamuud cabdilaahi sango maxamuud cabdilaahi ciise sango oo qaliil loogu sameeyey hosbitaalka rajab طayib erdogan ee magaalada muqdisho ama hore loo odhan jiray digfer abwaanku daryeelkiisa caafimaad alxamdulilah waxa weye waa la daryeelaya waa la garab taagan yahay keliya waxaan ugu baaqaynaa soomaalida meel kastoo ay joogto inay abwaankooda usoo duceeyaan abwaankan waxa weye abwaan in badan murtidiisa ay muxuu ahaye ku raaxaysanay madadaaladiisa dhegaysanay xikmadiisu maskaxdeena in badan ka shaqaysay waqti badan la qaadanay xilliguu caafimaadka qabay maanta waxa weeye shayga ugu muhiimsan oo u baahan yahay waxa weeye waa caafimaad inaynu allah uga baryayno inuu caafimaad siiyo in badanoo ay ka mid idinka waxaa laga yaabaa inay ku jiraan dad allah aanu baryadooda dib u celin marka abwaankeena qaaliga aynu usoo ducayno faatixadan oo marno acuudu billahi min ashaytaan rajim bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم aynu ka warhaynaa waan maxamed cabdullaahi ciise sango waa abwaan soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed oo dhanna ay jeceshahay cid kastaana maanta markay xanuunkiisa ay maqashay ay damqatay gaar ahaan aniga kula hadlaya dee waa guddoomiyahayga oo waa guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed marka si gaara ayaan uga damqanaynaa xanuunkiisa ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inuu caafimaad siiyo alla caafimaadka iyo cudurkaba haya marka xanuunka haya ilaahay dembi dhaaf ha uga dhigo caafimaadna ha ugu bedelo waa dadka indhaha ummadda u ah haddii alla ku run yahay dariiqa u tilmaamana ay maraan ummadda marka maanta waa xanuunsan yahay xaalkiisuna waa liitaa hase yeeshee ilxumo looma dhinto badbaadadana ilaahay baa haya sida qadiijo boqran sheegtay dadka aan u mahad celinayno abwaanka la dadaalay waxaa ka mid a wasiirka arrimaha gudaha jeegan waxaa ku qoran $1,500 $1,500 wuxuu yidhi abwaan maxamed cabdullaahi ciise sango cabdi taaliil warsame iyo abwaan deeq oo jaha la kala gaarsiiy marka oo mahad celinaynaa isagana cid kasta oo ummaddeena dhibaataysan wax u tartana ilaahay ka abaalmariyo ayaan leenahay ruuxii samaan fala samaan waayi maayo samaantuu sameeyaa rabbi sama ku siiya waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu